السلام عليكم waxaan hortaaganahay hadda oo aan kaala hadlayaa garoon asagoo kale aanan caalamka lagu arag garoon ka samaysan 970 konteenarada xamuulka isa saaran sababta aan muuqaalkan u sameeynayo oo aan halkan u imaaday ma aan kaliya in uu ka samaysan konteenaro isa saaran sababta aan u imaaday waan ku sheegi doonaa wax yar kadib waxaan kaala hadlayaa oo ah meesha uu garoonka ku yaalo xeebta khaliijka mantiqadan lagu magacaabo ra's buucaabuud oo ka mid ah dabcan dooxa qatar garoonkan wuxuu martigeliyay 7 ka mid ah ciyaarihii koobkan adduunka ee hadda sii dhamaanayo 7 ciyaarood ayuu martigeliyay 6 ay ahaayeen wareegga koobaad iyo hal ciyaar wareegga 16aad garoonkan la kala furfuri doono sida aan tafaasiish kugu sheegi doono wuxuu martigeliyay ciyaartii Mexico iyo Poland Portugiiska iyo Ghana Faransiiska iyo Denmark Brazil iyo Switzerland Argentina iyo Poland Serbia iyo Switzerland ciyaartii ugu dambeysay ee garoonkan lagu ciyaaro waxay ahayd 5tii bishan hadda aan ku jirnay December Brazil iyo Koonfur Korea wareegii 16aad taasoo ka dhigneyd markuu albiter ku dhawaaqay dhamaanshaha ciyaartii Brazil iyo Koonfur Korea in garoonkan uu galay xaalad ixtidaar ah in uu dhimanayo yani sababtoo ah wala kala furi doonaa ciyaartaasna waxay ahayd ciyaartii ugu dambeysay abid ee garoonkaas lagu ciyaari doono haddii xukuumadda Qatar ay go'aankeeda bedelin garoonkan qaado 44,000 oo bani aadam wuxuu ka kooban yahay sida uu magaciisa muujinayo 974 konteenar sidoo kale magaciisa wuxuu muujinayaa furaha dalka Qatar 974 haddaba xagee la geyn doonaa garoonkan markii la kala furo sidoo kale waan kuu sheegi doonaa garoonkan wuxuu saaran yahay badda deegaankan sidaan sayra sheegay ra's buucaabuud xeebta bari ee magaalada Dawxa heer aad u malaynayso in uu biyaha ku dhex yaalo sida uu badda ugu dhow yahay sidoo kale xeebtan lagu magacaabo 974 jamaahiirta ama taageerayaashii halkan koobka ku daawanayay waxay awoodeen inay ku soo dabaashaan badda labada kaambi inta u dhaxaysa xoogaa bacaadkan ay ku soo yararaftaan kadibna ay garoonka ku soo noqdaan sida uu garoonka xeebta u saaran yahay haddaba su'aasha $1 milyan waa maxaa loo kala furayaa garoonkan kow Qatar uma baahno si degdeg haddii aan kugu sheego uma baahno garoomo badan ayaa ku yaala kuwii loo dhisay koobkan adduunka iyo kuwii aslan sii dhisnaa sidaas darteed uma baahna garoomo badan oo ka mid ah kuwan koobka adduunka hadda lagu qabanayo ayaa la kala furfuri doonaa haddii ay macquul tahayna tafaasiishooda sidoo kale waan kuu sheegi doonaa laakiin hadda midkaan ka hadlayna maanta waa midkaan 974 garoomadu marka koobaad waa magaalo yar oo guurayso maxaad haddaba uga baahan tahay garoon malaayiin lacag ku baxayso dhinaca daryeelkiisa shaqaalaha ka shaqeynaya korontada ku baxaysa nalalka yani intaasoo kun oo qof oo ka shaqeynayso marka garoon aan lagu ciyaaraynin maxaad uga baahan tahay sidoo kale Qatar dad badan
sidoo kale qadar dal weyn ma ahan kooxo badan oo kubadda cagna kama dhisno jamaahiir badan oo kubadda sidoo kale yani aad u jecelna ma joogto markii koobkan adduunka hadda laga soo tago horyaalka qadar ani mar baan tagi jiray yani cid daawanaysa ma arkaysid waxa laga yaabaa naadiga asad lagu magacaabo kale garoon caalami ah xitaa meesha lagu talagalay VIP-ga inaad tigid wax u dhigmo $2 aad ku fariisato waa horyaalka qadar ma ahan koobka adduunka taasoo ah in dad badan ayna imaan jirin haddaba maxaad uga baahantay marka garoomo aanan lagu ciyaaraynin jamaahiirna ayna imaanaynin garoonkan 974 oo ay dhistay shirkad Spanish lagu magacaabo Venwick waxa loogu talagalay aslan markii la dhisay in la kala furo markuu koobka adduunka dhamaado in la kala furfuro ayaa loogu talagalay sidaas darteed markii xitaa konteenarada laga soo tago waa waxyaabo is saaran laakiin si injineernimo khatar ah loo dhisay aanan kala fuqaynin aanan dhaqdhaqaaqaynin cajiib ah waana garoonkii ugu horreeyay caalamka oo qaab noocan kale loo dhiso garoon la kala furfuri karo kadibna meel kale laga dhisi karo waxaa la hubaa kaliya in garoonka meesha laga saarayo uuna sii jiraynin laakiin meesha la geyn doono ilaa hadda ma caddo warbaahinta hadda tusaale ahaan qadar ka baxsan kun war ayay iska sheegeen xitaa waxay faafiyeen muuqaallo aan sax ahayn in garoonka la kala furfuray laakiin aniga indhahay ku soo arkay weli lama bilaabin kala furfuritaanka sidaas darteed ma caddo markii la kala furfuro meesha la geyn doona waxaa maalmihii la soo dhaafay ee warbaahinta qadar gaar ahaan kuwa Twitterka ay qorayeen in garoonkan loogu tabarucay dalka Tunis arrinka in dalka loogu tabarucayo ma ahan mid cusub wax badan ayaan maqli jirnay halka dhinaca kale guddiga qaabilsan mashaariicda iyo dhaxalka koobkan adduunka ay sheegtay in garoonka meesha uu ku yaalo xarumo ganacsi waaweyn laga dhisi doono ama xarumo ganacsi nooc ay ahaadaanba laga dhisi doono maadaama mantiqadan ra's buucaabud tahay meel ilaa heer yani aad yar qaali oo yar qurxan xeebo iyo muntajacaad ay ku yaalaan meel lagu nasto resorts ay ku yaalaan sidaas darteed xarun ganacsi ay meesha noqon doontaa laakiin waxaa la hubaa garoonka in la kala furfuri doono laakiin in wadan kale loogu tabaruci doono iyo in qalabka uu ka samaysan yahay la sii adeegsan doono waxyaabo kale lagu samayn doono ma caddo midaas waxay ahayd warbixintaas aan jeclaystay in aan idinla wadaago oo ku saabsan garoonkan ra's buucaabud 974 ee la kala furfuri doono kuna yaallo meeshaas aadka u qurxan haddii aad aragto muuqaallo ama sawiraad internetka ku aragto in kala furfurka uu bilowday waxaad ogaataa inayna jirin weli lama bilaabin mawduucan aan ku soo wareegay xeebtan 974 mantiqadan ra's buucaabud iyo garoonkan 974 sidoo kale konteenaradaas cajiibka ka samaysan intaanu ku egyahay وأنا عمر إنشار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.